jigjiga 17 Sebtembar 2021 shirka guddiga fulinta jawxo ee caadiga ah oo ka furmay magaalada jigjiga ee caasimadda Somali State socdayna muddadii u dhaxaysay 7 ilaa 10 Sebtembar iyo 16 Sebtembar kaasi oo lagu falanqeeyay xaaladda iyo isbedelada ka jira geeska Afrika, Itoobiya iyo gaar ahaan tan dawlad deegaanka Soomaalida. guddiga fulintu wuxuu mar kale xoojinayaa nabad ku halganka istiraatiijiga ah oo uu ku gaadhayo ujeedooyinkiisa hab nabadeed iyo wada xaajood inkastoo ay jiraan caqabado adag oo ka hor yimid iyo cadaalad darro ballaaran oo lagula dhaqmay tan iyo intii uu jiray heshiiskii nabadeed ee dhexmaray ONLF iyo dawladda Itoobiya si nabad waarta loo helo deganaashana loogu naaloodo dhan walba waa inuu ilaaliyo heshiiskii taariikhiga ahaa ee nabadda maadaama uusan deegaano keligii nabad ahaan karin inta qaybo kale oo Itoobiya dagaal ka socdo ONLF waxay si joogto ah ugu baaqaysaa dhammaan dhinacyada dagaalka inay joojiyaan dagaalka laguna bedelo wada hadal keena xal waara si loo baajiyo in malaayiin kale oo dad ku waxyeeloobaan dagaalka. guddiga fulinta ee jawxo wuxuu si qoto dheer u qiimeeyay ka qayb qaadashada ururka ee doorashada lixaad ee Itoobiya taasoo la filayay inay ka duwanaanayso doorashooyinku sheegii ka horeeyay. waxay jawxo aad uga xun tahay in guddiga neeba ee doorashooyinka ku guuldaraystay inay doorashada ahaato mid leh shuruudo ka dhigi kara doorasho xor iyo xalaal ah iyadoo ay jawxo in badan la wadaagtay codsiyo talooyin iyo cabashooyin kala duwan si loo saxo khaladaadka waaweyn ee ku jiray hanaanka diiwaangelinta codbixiyaasha. waxqabadkii neeba wuxuu noqday dib u dhigid 3 bilood ah iyo rajo maran oo lagu maaweeliyo shacabka Soomaaliyeed sidaa daraaddeed jawxo kama qayb galayso doorashadan dhalanka rogan. go'aankan jawxo ma ahayn mid si fudud lagu gaadhay wuxuu yimid kadib markii tashi ballaaran lala yeeshay xubnaha taageerayaasha aqoon-yahanka waxgaradka iyo shacabka Soomaaliyeed tan iyo intii ururku uu go'aansaday joojinta halganka hubaysan wuxuu ku xaqiijinayaa xaqa shacabka Soomaaliyeed si nabad ah wada hadal iyo dimuqraadiyad ku dhisan. ururku wuxuu go'aamadiisa ku gaari jiray habkan la tashiga bulshada. dhanka kale wuxuu xisbiga talada haya ee BB abuurayay duruufo adag iyo hor istaagyo uu hordhigayo ururka ONLF iyo xisbiyada kale ee mucaaradka ah xilligii isdiiwaangelinta tartamayaasha iyo codbixiyaashaba. handadaad xidhay gacan ka hadal lagula kacayay xubnaha xisbiga gaar ahaan xilligii doorashada. tallaabooyinkan khaladka ah ayaa burburiyay hanaankii diiwaangelinta qaybinta kaararka codbixinta iyo guud ahaanba hanaankii doorashada. kadib markii la waayay hanaan cadaaladeed oo lagu saxo gafafkan waaweyn waxay ONLF ku qasban tahay inay ka hadho doorashada. guddiga fulinta ee jawxo wuxuu walwal weyn ka muujiyay xaaladda sii xumaanaysa ee ka taagan xadka u dhaxeeya Soomaali iyo Canfar. jawxo waxay rumaysan tahay in xal loo heli lahaa mushkiladan hadday daacad ka tahay rabitaan dhabiyana ku jiro dawladda federaalka ah iyadoo loo marayo waddo dastuuri ah iyo hanaan sharci ah. wax la yaab leh weeye in xoogaga gaarka ah labada qowmiyadood oo uu maamulo hal xisbi ay dagaalamaan. waxaan qabnaa inaan arrintan lagu xallin karin heshiis jujuub ah oo ay galeen maamuladii maqaasaarka ahaa ee kala dambeeyay sida dastuurka Itoobiya uu qabo. haddii uu khilaaf ka yimaado xuduud u dhaxeeya laba qowmiyadood waxaa lagu xallin afti laga qaado dadweynaha ku dhaqan goobtaas. haddaba maxaa loogu dabaqi la'yahay midda Soomaalida iyo Canfarta? ONLF waxay ugu baaqaysaa dawladda federaalka inayna ka dhuumanin mas'uuliyaddeeda ayna waajahdo dhibaatadan oo ay ku xalliso si cadaalad iyo daahfurnaan ku jirto. ONLF waxaa kale oo ay ugu baaqaysaa qowmiyadaha kale inayna isku soo dhex tuurin siina hurinin
khilaafka u dhaxeeya labadan qowmiyadood ee walaalaha ah. Faragelin khalad ah oo lagu sameeyo arrintan waxay horin kartaa xiisad adag iyo colaad fogeysa wada noolaanshaha ummadaha. waxaa kale oo ay Jowhar ugu baaqaysaa bulshada caalamka inay gargaar degdeg ah lala soo gaaro dadka tabaalasan ee ku soo barakacay colaadda u dhaxaysa Soomaalida iyo Canfarta oo gacan bidixayn lagu hayo dhanka dadka Soomaalida ah. Jowhar waxay mar kale ku baaqaysaa shirweyne qaran oo wada tashi si loo mideeyo shacabka Soomaaliyeed loona curiyo go'aan midaysan oo Soomaaliyeed kaasoo adkaynaya wada jirka ummadda, nabadgelyada iyo deganaanshaha aan ku naaloonayno. midowgan oo kale waxaa ka dhasha is-afgarad wada shaqayn abuuri kara hannaan dimuqraadi ah oo keena matalaad siyaasi ah oo sharci ah, waana saldhigga bulsho nabad ku wada nool dhexdeeda iyo deriskeedaba. ugu dambayn, Jowhar waxay mar kale adkaynaysaa go'aankeedii nabad ku halganka istiraatiijiga ahaa ee ay ku raadinaysay xuquuqda shacbiga Soomaaliyeed ee dulman, waxayna diyaar u tahay inay kaalin mug leh ka qaadato wada xaajood kasta oo xalaal ah. midnimo, mintid, isku tashi. Allahu akbar.